wafdigan oo ka socday hay'adaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ka howlgala ayaa qiimeynayay xarumaha ay doonayaan in UN-ku ay ku yeelato Dhuusmareeb iyo baahiyaha caafimaad ee deegaanka ka jira. wafdigan ayaa waxa ay booqdeen xarunta Shiir Kole oo qayb ka mid ah iyaga dhismo uga socdo halka qaybta kalena la doonayo inuu ku shaqeeyaan golaha wasiirada Galmudug, isbitaalada gobolka iyo xanaano, xarunta howlaha guud iyo guriyeynta iyo xirada daroogo. inta kadib waxay aqalka madaxtooyada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug kulan kula qaateen madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. markii uu kulanku soo idlaaday ayaa waxa warbaahinta uga waramay safarkooda iyo waliba waxyaabaha shirka looga hadlay Maxamed Axmed Warsame Koofi oo ah madaxa hay'adaha Galmudug. maanta oo taariikhdu tahay 18 bisha 8 2018 waxaan ku soo dhaweynay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb wafdi ka socday qaybaha kala duwan ee UN-ka kuwaas oo isugu jiray hay'ado badan ee hay'adaha UN-ka kuwaas oo ka soo degay aeroboortka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb kadibna aan ku soo dhaweynay madaxtooyada Galmudug waxa u yimaadeen qaybo badan oo ah horumarka deegaanka iyo sida ay xafiiskoodii weynaa meeshan uga furan lahaayeen una dhisan lahaayeen xafiis joogto ah. waxa ay booqdeen dhammaan meelihii loogu talagalay inay degaan mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba. sidoo kale waxa ay booqdeen xarumaha bulshada lagu daryeelo sida isbitaalada iyo meelaha magaalooyinka u ah horumarka. waxay u socdeen guud ahaan in ay eegaan sida xaaladda caasimadda Galmudug iyo deegaanada ama gobolada iyo degmooyinka Galmudug ay yihiin kadibna insha Allah taala wax qabadkoodii degdeg ah ay la yimaadaan. waxa soo dhaweyn kadib ay booqdeen meelahaas aan idin sheegnay oo ay kamid tahay xaruntoodii ku meel gaarka ay si ku meel gaar u sii degi lahaayeen, sidoo kale xaruntii sida joogtada ay u degi lahaayeen una dhisan lahaayeen, sidoo kale isbitaalada waaweyn sida isbitaalka gobolka iyo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee xanaano asagana caasimadda ku yaala, iyo sidoo kale meelo kale oo muhiim ah oo bulshada iyo ka maamul ahaanba muhiim u ah. markii ugu dambeysay waxa ay xafiiska madaxtooyada Galmudug oo ku qaabilay madaxa xukuumadda Galmudug Dr. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan asagoo uga warbixiyeen socdaalkii ay halkan ku yimaadeen iyo ujeedada ay lahaayeen, isaguna uu si fiican u soo dhaweeyay oo ka codsaday meelaha ay booqdeen serviceska ama adeegyada bulshada ay u baahan yihiin maadaama ay soo arkeen in ay wixii horumar ahayo laga sugayo dhammaan ay si degdeg ah u qabtaan. ayaguna way aqbaleen. Nafisa Xirsi Maxamuud, Universal TV, Dhuusamareeb.